Sheekadani waxaa nooga soo sheekaysay gabar joogta Isbaanishka. Sheekaduna waxay u dhacaysaa sida tan. Anigu waxaan ahaa qof akhriska jecel, mar walbana raadiya cilmiga ka maqan. Habeen kastana waxaan ku riyoon jiray sheekada aan akhristo. Laakiin habeenada ka mid ah waxaan ku riyooday arrin aad u naxdin badan. Anigoo ku socdo jaranjaro aad u dheer ilaa cirkana sii socoto, anigoo ku socdo dhinacyadeedana ubaxyaal ku abuuran yihiin. Jaranjaradaas uma ekeen mid dhammaanayso. Horteyda waxaa ka soo baxay nin dhar aad u qurxoon sita. Dharkaasuna waxay ahaayeen dhar suud ah oo aad u dhalaalaya, laakiin ninka wato wuxuu ahaa nin wejigiisa cabsi leh. Markaan arkay aniga dib uma sii fiirin, sababtoo ah waan ka baqay, hoos ayaana fiirinayay. Anigoo hoos fiirinaya iskana mashquulinaya ayuu istaagay. Kadib inuu ila hadla ayuu wuxuu igu yiri, adiga qaladaad badan ayaa gelaysaa, waadna ka shalaynaysaa noloshaada, wax dheer siima jiri doonto. Kadib jaranjaradii ayuu iga soo tuuray. Sheekadaas markaan ku riyooday kadib waxaan joojiyay cilmi siyaadadii aasiyaasan jiray, waxaana noqday qof iska caadi ah. Sheekadan labaadna waxaa nooga soo sheekaysay gabar joogto isla Isbaanishka. Sheekaduna waxay u dhacaysaa sida tan. Walaalkaygu wuxuu ahaa dadka habeenkii qarwa ama habeenkii socda, wuxuuna qabay cudur oo habeenkii la socdo. Habeen kasta markaan jiifano asigoo socda ayaan arki jirnay, kadibna guriga ayaan kusoo celi jirnay. Laakiin habeenada ka mid ah waxaa dhacay arrin cajiib ah. Anigoo hurdaya ayaa waxaa la soo gargaraacay albaabka qolkayga. Markaan furayna waxaan arkay walaalkay oo albaabka taagan, kaasoo dhafar aad u badan ka muuqdo, indhihiisana gaduud ay yihiin. Wuxuuna u ekaa sida qof waalan oo kale, wuuna ii dhoola caddeeyay. Run ahaantii ma fahmin wuxuu sidaan ka wado, laakiin aniga qarowga habeenka ayaan ku ogaa. Waana soo cararay, waxaana u wacay hooyo iyo aabe. Kadib walaalkay wuxuu bilaabay inuu guriga ku wareegsado, wuxuuna dhahayay, ha samaynin, waan ku baryaa ha samaynin, waxaa rabtid waa ku sameynaa, waa ku baryaa ha samaynin, waa ku baryaa ha samaynin. Qaladkan oo kale mar labaad uma laabanayo. Run ahaantii aniga naxdinta ayaa igu sii laba siyaadmatay, aad ayaana u baqayay. Sariirta laabkeeda ayaana ku dhuntay. Wuxuuna igu yiri, aamus waryaa. Kadib wuu suuxay. Run ahaantii xilligaas aniga dareenkayga ma qiyaasi karin, aad ayaana u baqay, meeshii ayaan iskaga hurday. 9 saac habeenimo markii la gaaray ayaan xoogaa soo baraarugay, waana soo kacay. Waxaan arkay hoos igu soo socda. Kadib waxaan iska saaray cabsidii dham igu jirtay, niyadda ayaana degsaday, inkastoo aniga aan baqayay. Haddana waxaan isku dayay in aan walaalkayga soo qabto, kadibna sariirtiisa aan geeyo. Waxaan isku dayay inaan soo baxo, kadibna walaalkayga sariirtiisa aan ku celiyo. Kadib waxaan ka soo baxay qolkayga. Banaanka ayaa soo fiiriyay, waxaanba arkay asigoo sida caaradii oo kale u gargoorinayo. Run ahaantii cudurkan sidaan u siyaadada ah aniga walaalkay weligay kuma arkin, waana la yaabanaa. Aad ayaan ugu sii cabsaday, waana ku qaraacmay arrintaas. Markaan arkay aniga naxdin daraadeed waan banuuxsan waayay, kaliya indhaha ayaan ka dayayay, waana cabsaday, aad ayaan ugu baqay. Inkastoo aan ka baqayay, haddana waa walaalkay. Kadib xoogaa kadib wuu istaagay, kadib aniga ayuu isoo fiiriyay. Wuxuuna iisoo fiiriyay qof oo caro u qabo camal. Kadib aniga waan ka soo cararay, waxaana ku soo laabtay qolkaygii, waana iska hurday. Subaxdii markii la gaaray ayaan waxa uu sheegay arrinkii walaalkay, laakiin asiga maba ahayn mid wixii dham xasuusta. Wuxuuna igu yiri, maxaa xala dhacay oo adiga qolka aad iskugu soo xirtay? Wuxuu xala sameynayay dhammaan waa u sheegay, laakiin asiga wuu i aamini waayay.